Yusuf. Good to meet you. How are you? I'm glad you got word that we were coming to mine. To Bada. Good to meet you. How are you? Hello, how are you? Meet the ambassador back there. How are you? How are you doing? How are you doing? Jan? I'm sure. Yeah. How are you? I'm doing okay. How are you? Okay, fine. And Mr. Walquist, General Jama. Hello, General Jama. How are you? Sultan. Sultan Yasmail. Ashur. Nice to meet you. Okay. So, how are you? Nice. Good. You got quite a crowd. It's a long ride. waxaa gegida diyaaradaha ee magaalada baran ka soo degay niman wafdiya oo ka socda dalkaas Mareykanka iyo niman ka socda hay'adaha mucaawanooyinka ee degan Nairobi iyo Djibouti. nimanka Mareykanka waxay kala yihiin safiirka u fadhiya Mareykanka dalka Djibouti iyo safiir ku magacaaban oo u fadhiyo dalka Soomaaliya. waxaa magaalada si sharaf leh oo diiran ugu soo dhaweeyay wufuudda iyo isimada iyo guurtida deegaanka Warsangeli oo uu hogaaminayo wakiilka suldaanka Ismaaciil Suldaan. wafdigu waxay gacan qaadayaan duqeyda iyo deegaanka beesha iyo dhalinyarada iyo baacmisharka iyo wufuud ka socda jaaliyadaha Warsangeli ee degan waddanka dibaddiisa. maalinta looma kala harin si diiran ayaa loogu soo dhaweeyey wafdiga looguna kaxeeyey magaalada iyagoo laga dhaadhicinayo ama loo sharaxayo meesha deegaanka iyo dadka Warsangeli ay ka taagan yihiin arrimaha murugsan ee dalkeena hooyo. wufuudda intay joogeen deegaanka waxaa si caddaana ay u arkeen sida ay midnimadu iyo Soomaalinimadu ugu dheer tahay dadka Warsangeliga. waxaa si caddaana loogu sheegay meesha uu deegaanka Warsangeli ka taagan yahay arrimaha murugsan ee Soomaaliya. waxaana halkaa marayay nimankii journalista oo ka socda hay'ado badan oo wararka ah oo ay ka mid tahay Voice of America. markii lagu qaabilay madaarka oo si fiican loogu soo dhaweeyey kabacdi waxaa loo kaxeeyey wafdigii ballaadnaa magaalada halkaas oo ay kula kulmeen dadka intiisii kala. wufuudda saan horey idinku sheegay waxaa soo dhaweeyey dad aad iyo aad u fara badan oo hogaaminayo mudane Ismaaciil Suldaan oo ah wakiilka suldaanka Warsangeli Cabdisalaam. waxayna halkaa marayay Maxamuud Axmed Ayaan oo ah gudoomiyaha Safra. waxayna halkaa marayay Maxamed Jaamac Ilkhajiir. waxaa joogay Sakhaanle Cabdikariin Cashuur iyo dad aad iyo aad fara badan oo aan halkan kusoo koobi karayn. wafdigu wuxuu u tegey oo lagu qaabilay ugu horreyntii xafiiska SPRA halka taasoo ah hay-ad macaawino oo ka dhisan gobolka. wafdigu wuxuu si xurriyada sharaf lagu jirto u dhex marmaray magaalada una qaabilay dadka kala duwan ee degan magaalada halkaas oo fikradaha iyo ayriya dadku qabaan ay iyagu si caadiya u wareysanayeen iyagoo oo waxba looga tarsin. in badan ayay magaalada dhex joogeen waxayna tageen xafiisyada faraha badan ee ka furfuran magaalada ha ahaato xafiiska dhallaanka iyo hooyada oo magaalada ka furan ha ahaato dhakhatarada magaalada iskuulka iyo xafiiska ururka USP kaasoo ah xisbiga qura ah ee dadka deegaanka degani ay aaminsan yihiin kuna raadsan arrimahooda siyaasadeed.
increasing. They have from farmers. Yes.